waqtiga kale formality-ga dheeraynmayo waxaan aad u soo dhaweynayaa wafdiga dowladda federaalka ku-meelgaarka ah oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka ku-meelgaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo inta la socota iyo ergooyinka kale oo ka yimi gobolada kale iyo marti sharafta guud ahaan iyo xukuumadda iyo hay'adaha ajnabiga ah la joogayo ay ka mid yahay waxaan rabaa maanta halka inaan ka caddeeyo waxa weeye inay Puntland u tahay guul weyn in shirkan Garowe lagu qabtay oo ah shirkii mabaadi'da Garowe ee dowladda Soomaaliya oo soo socota oo dastuur federaal ah loo samaynayo ay ku dhisan yahay in maanta halkan laga dhawaaqay heshiiskeedana lagu saxeexay sidaasna uu ku wargeli waxaan leeyahay inaan wax badan iga sugaysaan inaan iraahdo waqtiguna waa gaaban yahay maalintii dhaweyd oo shirka la furayay waxaan idin sheegay in la wada hadli doono si adag loo wada hadli doono laakiin aan la kala tegay iyadoo aan ina dhexgelin waxay ku dhammaan doonaan nabad iyo wanaag iyo afkarad Soomaaliyeed sidaasayna u dhacday anaga heshiino anaga wax isku qabanay anaga markii dambe na dhamaysanay iyadoo aan cidlib loogu sheeganaysa inay dhexgeliso oo ay wax noo sheegto ay ku jirto waxaan marna ka maarmin inaan sheego waxyaalaha xaqiiqda ah oo jira oo xaq ah waxa weeye qaabka Soomaalida muddo hadda wax lagu qaybsanaysay waxna ku hirgeli waayeen caqabadana noqday oo la yiraahdo afarta iyo barka waxay yihiin qaab qabaya xaq darraa qoraalada waa ka sameeyay aad iyo aad u xun Soomaalida ayaan ku gaari karin qarannimo weyn oo ummadaha Soomaaliya adduunka ka qayb gasho hase yeeshee ragga halka noogu yimi oo dhibaato weyn ay ka haysto koonfur burbursan oo waxaas muddo ku soo dhaqmaayay way ku adkaatay inay qaabka ay nala qaateen oo kale inay halkan kala noqdaan marka iyaga uga tufay inaan laga qabsan oo وما فدنا وقابلنا لما أقل بالسبي أقل كسرة وحدافع يا وهي هاي وهم دور دولة الجيران وقلنا ما يوهي سيقول إعلان دعامنا كل من كلا أفرت يبركة وحقنا وحكيم غيرين أنت تذكر عقلك أصول نظريه أو نسيب نازل وهل يسولف فهم أيه مدرس كورن أو برامج خاصة أو سيجرا أيه أنت عقلك سليم كإيمان أيه وحارو قوانك إن يسلا كتب سماع نوتنا ولا حرين يعلوه إن يسلا مش شريس كورن بلغان غير كان يلا كيفن يسا غيرها كلنا يلا كيفن دور مركب بشان أفر يبرنكم الإسلام دون كازنا وين أولاد وحي سومالي وين كان البيت كهو دينا سومالي إثيوبيا وحى ليش قال حفالية قد ما رك إنت بدأ كذا لي مركز سويا وحي وهمي بينا ما وارد جبس ولناي وحنا حدود كل موضوع وعير من بدأ كي وحنا أنا وحش شيء من مينا تقول توصل اليوم بكل نورا وما له مرمى اللي جبسنا اليوم ويجي حبض الناس التالية وهذا النفس الوسع على يافر بيكون سنة فكري هو يبغى هذا هيسد نجي هذا وحنا أنا وحش شيء من بدل واحد وعن فرحنا هاي وعن مسير هاي إلى التي دونان والمناكسن وصومالي الدبادو يبقوا هايستو هريها بحوتيها يبقوا كتيرة ملا عيبتا يبقوا حدودية كتلاوي يبقوا هاي ودادو وقوة شعرها هاي ومركي بوفيس كبعوه وهاي فرستريشن كتيرة ودنوا هاتيني منها أي إيس الحياة كسوكا نعيان أيان نوطرين إنا يدوردو بسنتو dalkooduna ay ku soo noqdaan dabadeedna ilaa habeenka shay subaxii ma socdeen ay markaas ay noqoto dawlad Soomaaliya oo xagaa ku socota inay dhalato oo ummadaas dalkeeda isku soo noqoto dibna u dhisato
إننا يمكن نبض له ولا هتنس كاي أدون في تيسا كلا يمكن نبض له سلاسة مضمينة سلاسة وحكومة الدوران هذه مرنوات وحن مهدو حيرنا وفود بلارا وميل بكتمي وملاحظ دولة TFG iyo meelaha kale oo maamuladu ka jiraan ka yimi iyo dadkii Soomaaliyeed oo kale ka soo qayb galay shacabka reer Puntland oo sida geesinimada ah amaanka u sugay way ku martigeliyay u soo dhaweeyay waxa laga daydo oo laga sheekeeyay sameeyay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Ilaahayna khayr uga bariyaa ciidanka amniga Puntland oo si nabadgelyo ah oo wanaagsan u sugay amaanka maalina shaqaynayay oo suurta geliyay shirkaan inuu dhaco halka aan isugu nimaadno waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Soomaaliya nabada Ilaahay inuu isugu keeno ay ku soo wada noqoto siday bari ahaan jireen wanaagsanay caqliga iyo xogdiga iyo xumaanta ay ka baxdo iyo qabyaalada iyo qaadka iyo magaciisiga ugu dambeyntii intaan madaxweynaha ku soo dhaweey mid baan u sheegayaa wixii meel walba ka qaylanayo fadhi gudaha jirayo warbarlamaankii waa inuu banaanaaday hadda dhawaan baa la soo dooranayaa ninkii wax isku hayo halkaa oo kursi doonaya laakiin shaki waa laga rabaa kamra inaanan cabin qaad inaanan cunin inaanan ahayn muxuu ahaye dembi soo galay inaanan ahayn mid qabyaalista inaanan ahayn mid wax soo bilaqaystay xaaladda waa adag tahay waxbaa la fulayay caqabado islaamada la qaabita inaa la fulayay islaamada baa kulayaya marka ninkii rawaayadu wax isku haya madmada jooga gudaha jooga wadaan inuu furay wadada ku socda Ilaahayna wadada ku shaqeeyo ka dhigo ku soo dhawaad والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دبيان من رئيس وزراء مدحوين عبد الرحمن مدحوين دولة بطلان مدحوين عالم مدحوين دولة كالمدب وكيل أهل السنة والجماعة من قاسي إيجاد وزير هذا يخدمنا دولة فدرالك وزير هذا يخدمنا دولة بطلان كالمدب بعض الصحافة هواك الرجال لما نسوق البلايات وعليكم السلام ورحمة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أسكتي وحنا رأينا المهتمين بدأ أسود جديد مرحبا فرولة يدورن ديسي يشعب كيسة مرتقلين تا أي مرتقلين شركة يسيده وناكسن يقصوا دويين يسيده وناكسن أي محل تأجل عيال ماركت دنبوغ قولي أتكالي يسيده وكفت ميبا وأقول سوماليات وسومالي كولا فانيسو مركا ركوت أنا بين عاد كلنا كنا يتعطى فرصة نسيب هذيك أنت أسكتي مرة غرفة لنا إذا وقت قدرت إسا وعن رجينا طريقة وذهب كانوا مرينا ومريتونا وذهب كستو سومالي لحي على وحنا من السنة هاي شركة أنا بحيي يفتين لدرجة كذا وحنا نكسرين أنا وسومالي والنبلة dadka wada tiriyo gobolada dhisma qofka yaani Soomaaliga oo codkiisa si fara ugu doorta cid oo rabo meesha aan igsanayno halkaas waxaan isu dardaarmayna dhamaanteen inaan xoojino walaalnimada iyo midnimada Soomaaliya gacmaha is wada qabsano dalkeena aan ka saarno dhibaatada nimankaas ku soo duulay dalka iyo dadka iyo diinta magacyada kala duwan la baxay ka mid tahay al-shabaab iyo al-qaacida aan gacan biro ku qabano waxa aan ku badbaadayna waa dawladnimo waa naqana Soomaaliya waxay aaday waa naqana waxay ku fiican tahay waxay aaday waa qabyaalad iyo fawdo waxa ay weligeeda u ay jirtana waa dawladnimada iyo midnimada intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ciidamada Puntland oo runtii qayb xoogan ka qaatay sugidda amniga ama qaatay baa iyagu iyo shacabka Puntland sida ay ula shaqeeyaan ciidanka
waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin guul wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu